muqdisho. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ciidamada booliska ee gobolkaasi ayaa kormeer ku soo maray qaybo kamid ah gobolkaasi soo warbixin amurtaasi ku saabsan magaalada Jowhar nooga soo diray Ibrahim Cali Nuur. kormeerkan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo taliska booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ahaa mid lagu talagalay xaqiijinta amniga caasimadda Hirshabelle ee Jowhar oo muddooyinka dambe ay ka dhacayeen qaraxyo. kormeerkan waxaa horkacay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan waxaana ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar ee kusimaha taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana mid ay u tagayeen mas'uuliyiintan qaar kamid ah ganacsiga magaalada Jowhar ayagoo u koorgalayay guud ahaan amniga caasimadda Hirshabelle ee Jowhar iyo mid caafimaad. markii uu soo dhamaaday kormeerka waxa warbaahinta la hadlay taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Dhambe Maxamed Siyaad Cali Canjeex. bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. shirkeena wuxuu ku saabsan yahay shirkeena jalada wuxuu ku saabsan yahay qaabka amniga iyo yacni maaragtay magaalada sidii loo sugu lahay qaabka yacni maaragtay cudurradan faafa iyo waxa dadka looga wacyigelin lahay waxaan u baahnaa wacyigelin waxaana la socday gudoomiyaha gobolka waxaana la socday taliyaha qaybta waxaana la socday kusimaha taliyaha booliska Hirshabelle dhammaanteen waxaan soo marnay magaalada gudaheeda sida yacni maaragtay qaabka dadka looga wacyigelin lahay sida yacni maaragtay ay u socon lahayd qaabka ganacsiga uu socday yacni dhibaatooyinka magaalada ka jiro inaysan macna wax dhibaato ka jirin ayaan waxaan tusaynaa magaalada bulshada reer Jowhar fursaddan anoo ka faa'iideysan waxaan leeyahay bulshada reer Jowhar waxaan ka codsanaynaa in la shaqeeyo ciidamada booliska mar labaad mar saddexaad waa idin hambalyeynaa waana ku mahadsantihiin aad iyo aad aan u soo dhaweeyaa baada saxaafadana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqada aad nala qabateen oo wanaagsan waa idin kaga mahadcelinaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa insha Allah gobolku waa gobolkeena degmadu waa degmadeeni inaan ka wada shaqeyn doono haddii Allah insha Allah waa mahadsantihiin. waa kormeerkii ugu horeeyay oo sameeyaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo taliska booliska degmada Jowhar tan iyo markii qaraxyada ay ka dhaceen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Ibrahim Cali Nuur TV Universal Jowhar. wasaaradda